المدينة يرديس اللي قلت لها بجاد لواء أنا معلق كده بجاد كبروا walaalkay waa miskiin sababtoo ah والله غابك ولا أنا ما أقول أنا سيد حسن لنا الله شيء بس allaha u naxariistee waxaa saaka subaxii hore magaalada muqdisho lagu dilay nin dhalinyaro oo lagu magacaabi jiray liibaan waxauna ahaa wada kaxeeya mooto bajaaj muqdisho kuma cusba dilalka bajaajka laakiin liibaan ayaa waa berigii hore gurigiisa uga soo kalahay si uu quutalyoomka maalintaasi oo ugula laabto qoyskiisa kuwaasi oo caruur oo dhalay ka dambeysay iyo waalidiintiisaba waxaana lagu hordilay goob ay joogeen ciidamo ama jagboonti si qaas ah isbitaalka Madiina ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir allaha u naxariistay ninkan dhalinyarada ah geeridiisa waxay taabatay dadkii aadka u yaqaanay eheladiisa saaxiibadiis iyo qoyskiisa waxayna ku noqotay filan waa geerida ku timid liibaan waxau kaxeyn jiray bajaajka saaxiibadii liibaan la shaqeeyay waxay tilmaameen inuu ahaa nin degan dabeecad ahaana wanaagsan dadka bulshadana si wanaagsan ula dhaqmaa laakiin ciidan ka tirsan dowladda sida la sheegay ama la tilmaamay ayaa saakay mid ka mid ah askariga waxa uu ku dilay isbitaalka Madiina hortiisa waxayna ku wada murmeen iqaad iyo ku qaadi maayay maadaama bajaajleyda inta badan dowladda ay ka caleemo saarta ama ay ka istaajisay gebi ahaanba in aanan la qaadin askarta wadihii bajaajka liibaan marxuumka ayaase iska diiday in uu qaado askarigaas kadibna awood sheegasho ayuu bilaabay askariga waxauna laba rasaas oo ku dhuftay liibaan oo meydkaba uusan dhulka la dhicin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun liibaan waxaa geeridiisa gaartay qoyskiisa ehelada saaxiibadiis iyo sidoo kale xaaskiisa oo ilaa hadda ilinta cishan waaye isla markaana ku korbarooranayo meydka korkiisa waxaana la geeyay isbitaalka Madiina oo halkaas filinjeer ay reerka geysteen si ay u helaan cadaaladda warar kala duwan oo aan lagu kalsoonaan karin ama aanan xaqiiqo ahayn ayaa waxay tilmaamayaan in ciidankii ama askarigii dilay gacanta lagu soo dhigay isla markaana laamaha ammaanka ay horkeeni doonaan maxkamadda cadaaladda weli samacado eheladana weli waxay tilmaamayaan in wiilkooda cadaalad u raadinayaan ilaa maalinta ugu dambeyso ay cadaalad ka heli doonaanne wiilkooda uu ku jiri doono filinjeerka inkastoo cadaaladda oo dhammaystiran isla markaana qofka kale cadaaladiisa aanan la dafiri karin allaha agtiisa ay taalo haddana ehelku weli waxaa xanuun iyo uur ku taalo ku ah dilka wiilkooda liibaan allaha u naxariistee ee kaalin weyn ka qaadan jiray qoyska iyo heentooda waxauna ku adeegan jiray bajaajka wuxuu saaka soo macsalaameeyay xaaskiisa oo xaamilo ah waxaana la tilmaamay liibaan inay u joogto hal caruur ah oo ifka u nool isla markaana hadda xaaskiisa ay tahay xaamilo waana geeri xanuun badan oo taabatay qoyska liibaan oo degan degmada Wadajir iyo sidoo kale dhalinyaradii aadka u yaqaanay mid ka mid ah wadayaasha bajaajka ayaa inooga warbixiyay waxauna tilmaamay inuu ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee baradarawnimada mooto bajaajka wuxuu yiri wuxuu ahaa saaxiibkayga aad ayaan u jeclaa waana aamin waayay ayuu yiri geeridiisa inkastoo ay tahay geerida xaq qof kastana uu dhimanayo maalintiisa Alla uu asteeyay laakiin ninkan dhalinyarada ah ayaa ku tilmaamay inuu ahaa macalinkiisa isla markaana oo aad uga xumaaday geerida ku timid iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dowladda oo si bareer u toogtay isla markaana ku amray in si qasab ah oo ku qaado kadibna liibaan oo iska diiday inuu wax xoog ku qaado xoolihiisa ayaase waxa uu tilmaamay in gebi ahaanba uu u diiday sidaa daraadeed isfaham darrada soo kala dhex gashay iyo awood sheegashada qoraga askarigii ilaalinta liibaan loo xil saaray ayaase si bareer xabad ugu dhuftay waxayna noqotay geeri xanuun badan muqdisho markii aad joogto kuma cusba dilalka dhaca iyo sidoo kale in mootaaleyda ama dhalinyarada kaxeysata mooto bajaajka isla markaana ka maareeyaan nolosha qoyskooda iyo sidoo kale nolol maalmeedkooda iyo tan waalidkooda in lagu dhex dilo si bareer ah ciidan ka tirsan kuwa dowladda ay ugu xabadeeyaan ama ay rasaas ugu furaan qaarkood dhacay u geestaan wixii alyoom maalintaas ay shaqeysta ay ka dhacaan halka kuwa kalena ay ku sameeyaanbo
in ay si bareera u dilaan sida marxuumka maanta wadajir lagu dilay isbitaalka Madiine hortiisa jagboontiye ka agdhow ciidan dowladana ay joogaan ayaa lagu hordilay. walaashiisa oo warbaahinta la hadasha ayaa waxay tilmaamtay in ay walaalkeed ahaa wiil maskiina isla markaana si xaq darraa loogu dilay awood sheegashana ay tahay waxayna dowladda Soomaaliya sidoo kale garsoorka cadaaladda laamaha ammaanka gebi ahaantood bay ka codsatay in cadaaladda la hor keeno dilaygii marxuum Liibaan dilane in sidaasi oo kale la dilo oo laga dabageeyo. Muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya dilalka dhalinyarada loo geysanayo oo ay kaalin weyn ka qaataan ciidanka dowladda. sidaasi oo kale laamaha ammaanka ayaa horay waxay ku guuleysteen wadayaasha mootobajaajka iyo dad kale oo ganacsatada ciidan dilal iyo dhac u geystay oo ay muuqaal ahaan fududeysay in la soo qabto kaamirada qarsoon ee loo yaqaano camera CC taas oo kaalin weyn ka qaatan iyo markii dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaamiye amaradaasi ay soo fulisay isla markaana lagu amray in lagu xiro ganacsiyada waaweyn iyo guryaha intaba. waxaana durba la helaa ama fududaato muuqaal ahaan shakhsiyaadkii dilalka geystay ee dhaca u geysanayo iyo sidoo kale dhalinyarada si bareera u dhacan kadibna la raadiyaa muuqaaladaas. maxkamadda Soomaaliya waxaa inta badan ka soo muuqda muuqaalada qarsoon ciidan xabado isku bilaabayo kuwa dhacaya dad shacab ah iyo sidoo kale kuwa gale oo dhibaatooyin u geysanayo qaar ka mid ah bulshadii loo wakiishay inay ilaashaan ama ay badbaadiyaan kaalin weyn ka qaataan noloshooda. inkastoo dadka dhan aysan wada xumeen ciidankoo dhan aysan wada ahayn kuwa xun haddana waxaa ku jira kuwa suurad xumeeyay laamaha ammaanka kuwaasi oo waxyaabaha ammaanka dooriyaad u isticmaala kadibna bilaabaan in ay dhacaan ciidanka ama dadka shacabka ah. marxuumka geeriyooda Allaha u naxariistee oo lagu magacaabi jiray Liibaan ayaase noqotay geeri kale oo xanuun badan maantana Muqdisho hadalhayntii ugu badneed ama guud ahaan social media haysato waxauna ka tagay hal caruur oo nool iyo sidoo kale xaaskiisa oo hadda xaamilo ah wuxuuna biili jiray ama gacanta ku hayn jiray qoyskiisa xaaskiisa iyo sidoo kale waalidiintiisa oo ku nasteen isla markaana ugu adeegi jiray wixii uu alla ka siiyo mootobajaajka. Muqdisho wali waxay foolanaysaa dilalka dhalinyarada mustaqbal ifaya leh kuwaasi oo maareynta qoyskooda iyo xaasaskoodaba ku lug lahaa ama kaalin weyn ka qaato subax walbana u soo kacaan sidii eebba wixii uu siiyay ula laaban lahaayeen. Liibaan maanta waa marxuum. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. walaalkeen ilaah qabriga u waasiciyo jannatul firdawsana Allah ugu bishaareeyo gacanka xaq daran ayaa dishay cadaaladda in la hor keeno ayaan rajaynaynaa.